ururka samafalka Anfac Foundation ayaa sidaad hore uga barateen sanad kasta bisha barakeysan ee Ramadaan waxa ay furiyaan dadka masaakiinta ah ee jooga magaalooyin badan iyo masaajid badan oo ay deeq timir gaarsiiyeen. magaalooyinka la gaarsiiyay waxaa kamid ah Laascaanood, Gambare, Buuro Wada, Harwanaag, Boocame, Buuhoodle, Werwer, Baliharac, Gaadheer, Dhalaamo, Cune, Banyaal, Tomco, Balicad, Dogoble iyo magaalooyin kale oo badan. waxaynu u soo wakiishan inuu gaarsiiyo Sheekh Baledka degmada Werwer Sheekh Cabdiraxmaan Ciise waxa uu u qaybiyay masaajidda iyo magaalooyinka. dhanka kale culimada masaajidka ayaa u duceeyay ururka samafalka Anfac Foundation waxaana hadalladooda kamid ahaa sida tan. maalintii labaad Ramadaan waxa aan joognaa magaalada Werwer masaajidka Masta Jaamaca ee degmada Werwer ayaan joognaa. waxaan halkan ku qabanaynaa saxaafadan ama kilibkan aan ku qabanaynaa ururka la yiraahdo Anfac Foundation oo urur khayri ah oo dalka dibadiisa ka dhisan oo khayraadka iyo waxyaalaha samafalka dadka jilicsan iyo dadka masaakiinta iyo masaajidada iyo malcamadaha arrimaha awqaafta ka shaqeeya ayaa halkan maanta Ramadaanta waxa uu noogu keenay timir afraa oo ugu talagalay deegaanada gobolada Sool iyo Cayn. anagu ka Werwer ahaan degmada Werwer hadda nahay waxaana la soo gaarsiiyay ururku la soo gaarsiiyay timir dhan 800 kiilo oo u dhigma 80 tinig oo timir ah. halkaas oo loogu talagalay in la gaarsiiyo degmada Werwer iyo masaajidadeeda iyo magaalooyinka kale ee hoos yimaada. magaalooyinkaas oo aad u fara badan oo ay kamid yihiin isku jiro Banyaal, Dhalaamo, Cune, Dogoble, Balicad, Tomco, Gaadheer, Baliharac iyo Werwer oo magaalada weyna masaajidadeeda in loo qaybiyo. marka waxa weeye timirtaas weyna soo gaadhay waxaan ugu ducaynaynaa aan ugu mahadnaqaynaa ururka Anfac Foundation timirta iyo afurada uu dadka u keenay bisha Ramadaan oo caadadiisa ahayd oo hore ugu keeni jiray bil oo xilli kasta oo Ramadaanta in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala miisaanka xasanaadka u saaro, Ilaahay uu barakeeyo maalka iyo ubadka iyo oriyaha iyo tacabka Ilaahay uu barakeeyo aakhirana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala jannada firdawsa ku geeyo. ururkan Anfac ma aha urur ku ag in uu masaajidada iyo meelaha casiyo laakiin waxa weeye arrimaha awqaafta oo dhan ayuu bixiyaa. masaajidada ayuu dhisaa, madaarista ayuu wax ka qabtaa, malcamadaha ayuu wax ka dhisaa. waxa uu markaa ka qayb qaataa bixinta mushaaharaadka macaahidda qayb kamid ah sida macadka Banyaal oo uu maartay mushaharkooda bixiyo. waxa weeye khayr fara badan ayuu ka qayb qaataa, dadka masaakiinta ayuu caawiyaa, waa u taagan khayrka iyo wanaagga. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala magacan uu leeyahay Anfac waa Ilaahay waa ku anfacay dadka aad iyo aad uga shaqeeyeen. khayr iyo baraka ayaan dirijina oo idinku ducaynaynaa annagoo ah culimadii iyo odayaashii iyo dadkii reer Werwer ahaa. إن شاء الله ودادكنا تمرت قيبنا وقارسيني قيبت كلنا وقارسين تونا. هذه أدل مسنتين وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي والسلام عليه. وبعد ما أنت بشو أي تهاي لبدي بشي رمضان أنا كتشرنو سيدا وشيخ كده واتشيء وحنا سوق علي تمرتي ay soo gudbiyeen ururka khayriga ah ee Anfac. timirtaas oo ay ugu tala galeen deegaamo aad u fara badan oo hadda wadaadku u tirinayay. timirtaas wayna soo gaadhay dan reer Werwer nahay insha Allah inta kale haweeye dhimana waan gaarsiin doonaa. waxaan leenahay ururkaas Ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka hore miisaanka xasanaadka Allah idin saaro. runtii ururkani in badan buu hadda dhisnaa oo arrimaha khayriga ah haday masaajidda tahay iyo haday macaahid tahay iyo haday madarasooyin tahay iyo haday wadooyin tahay iyo haday biyo tahay meel kasta oo khayr ka socdo magacoodu waa ku xusan yahay oo dhaqaalaha way ku bixiyaan. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan idin ka baryaynaa yawman min al-ayyaam inuu Alle subxaanahu wa ta'aala miisaanka xasanaadka waxa aad la baxrisaan inuu Alle subxaanahu wa ta'aala idin saaro bedelkooda inaad janno ku heshaan baan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idinka rajaynaynaa. Ilaahay waxaan idin ka baryaynaa sida aad waxa weeye khayrka uga shaqeynaysaan idinka iyo awlaadiina inaad waxa weeye Ilaahay ku anfaco baan Ilaahay idin weydiinana waa maalin Ramadaane. timirtaasina wayna soo gaadhay horena waad u keeni jirteen insha Allah hadeerna waad keenteen. waxaad xisaana timirta aan kuma koobnay runtii deegaanka Werwer iyo inta hoos yimaadaba wax badan oo aad keenteen hadday macaahid tahay iyo hadday madrasa tahay
iyo hadday tahay arrimaha kale ee bulshadaba intaa way soo gaaraan waana la idin og yahay ogaalka ilaahay baana ka fiican subxaanahu wa tacaala waxaan idinka rajaynaynaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala jannooyin waaweyn waxaweye guryo waaweyn inuu alle subxaanahu wa tacaala uu jannooyinka idinka dhisan idin rajaynaynaa wasala allahu nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbi wasalam VOS Somali TV degmada Woodward.